بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين dhamaantiin intay dhageysanayso groupkan ku jirta waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa suldaan cali saciid cawl waxaan joogaa nairobi idinkala hadlayaa intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacantana allah caafiyo waxaan rabaa walaalayaal inaan idinla wadaago anagu saakay haddii aan maqalay dhacdadii ka dhacda dalsan dadkii dhintay iyo dadkii dhaawacmay annaga odayaashayda nairobi jooga waa is abaabulnay sidii aan arrintaas qayb uga qaadan lahayn baanu falankeed galnay abaabulka iyagana waa socdaa waxaanu maaragtay aanu saaka aanu ka dhiganay qorshe bal inaanu la kulanno nimankii madaxda ahaa ee meeshan joogay jubbaland iyo puntland oo saciid cabdullaahi deni iyo axmed madoobe ay kow ka yihiin xildhibaanadii iyo wasiiradii iyo wixii meeshaan joogay arrintaasu intii badnayd waa noo qabsoontay qolada xildhibaanada iyo maaragtay iyo wasiirada ahaa iyo maaragtay ganacsatada ee puntland ka yimi iyo dani la socday waanu la kulanay arrintana waanu u warramnay wayna nala duulaan tageen annagoo wada jirna oo ilaa adigu dhowr iyo 20 gaarayna oo rag maaragtay culus oo ay ku jiraan 4 xildhibaan oo maxay ahayd raggii la socday deni oo ama xogaymaha u ahaa ama siyaasiyiinta ay la socday maaragtay ganacsatadii jaamac dhaga dheer iyo rag ka mid yihiin rag ganacsato ah oo kale oo nin la yiraahdo maxay ahayd axmed xaaji cali iyo faarax toox iyo rag badan oo kale odayaashii magaalada maaragtay maxay ahayd gees walac ninka la yiraahdo xaamid rag badan oo noocaas oo aan idiin soo tirin karin waxaanu la kulanay maaragtay axmed madoobe annagu waanu warbixinay waxa meesha ka jira iyo xaaladdu sida ay tahay waanu ka warbixinay waxaanuna inuu yahay wax hore u khaldamay oo maaragtay niman maaragtay cadaawadi ku jirto la hubeeyey oo hubkii loo siiyey inay cadow ku difaacaan dadkii shacabka iyo maatada ahaa kula soo jeestay oo xasuuqaaya ciidankii furimaha joogay intay iska urursadaan ka baxay oo dadka soo leynaya haddana ciidanka dib ugu noqonaya rasaastii iyo wixii maaragtay la rabay inay jubbaland ku difaacaan dadka shacabka ku leynaya hadda mas'uuliyadeedana arrintaas annagu dawladaan u tiirinaynaa especially dalkii adiga madaxweyne ka ah adaa meesha jooga awoodda meesha ugu sarreysa adiga weeye haddii nimankan siyaasiyana adigaa baawurgareeyey oo xildhibaano iyo senataro iyo dawlad ka dhigay oo wax walba siiyey oo wasiir siiyey oo challenge-gan siyaasadeed geliyey reer annaga naga mida oo naga tirsan oo jifi annaga naga mid ahaayeen maantana waa raggaa dadka leynaya arrintaas waxa weeye keligoodna maahay dadkii deegaankaana la deganaa oo noocaas ahaa oo qabiil walbale baad sidaas ka dhigteen oo baawar garayseen in maanta nala laayo oo sidaana laku sameeyana haddii siyaasadda meesha ka jirto axmed adigu aad madaxda ka tahay baan u tiirinaynaa qoladii puntlandna aad bay ula hadleen waxay yidhaahdeen annagu hadda inaad reerkaa naga difaacdona ma rabno dadkaan meesha lagu leynayo waa dadka iyaga waa ehelka iyaga waa dadkaan waxu ahayn annagu waxaanu maalin walba garab iyo gaashaan kuugu nahay meeshaas maaragtay waxaanu leenahay axmed cidaan ahayna ma jirto ogaadan cidaan ahayna ma jirto hadda dadkii aanu matalaynay oo meesha annaga naga joogay in sidaa loola dhaqmo iyo degaankooda sidaa loola dhaqmona arrintaas aad bay noo xanuujinaysaa calaama su-aal bayna gelisay hadda niyow dadkaan haddaadan xal u hayna annagaa dad difaaca u keenayno laba doonyood baanu soo raraynaa hub iyo iyadana baanu soo raraynaa annagaa meesha keenayno isdifaacayna warcad baanu kaa rabnaa ninkaas wuxuu yidhi arrintaas wixii horey u dhacayna khalad bay u dhaceen talagalka iyagoona annagu inay qabiil ku weeraraan maaha inay annagu siyaasado kale aanu qalahayno inay dad kale la dagaalamaan baanu ula jeednay mararka qaarkoodna hadda marbay bahashu meelun u kula gelisaan mayo hadda arrintaan taagan mas-uuliyaddeeda anigaa wixii saacadan ka dambeeya la wareegay wasiiradii waxaan ka yidhi ka fariista xildhibaanadii waxaan fariista saraakiisha waxaan fariista waxaan la wareegay operation hubka dhigis ah oo qof kasta oo qora haysta oo deegaankaa joogo hubka lagaga dhigaayo hubna ha keeninina ciidamana ha keeninina mas-uuliyaddaas wixii hadda ka dambeeya anigaa la wareegay idinka waxaan idinka rabaa dadkiina inaad la hadashaan inaan ciidamada la hor istaagin haddaad hub haysataan hubkiina xeraysta oo sheesha cid guryihi
maaragtay iyo joojiya cid kasta amarka cambiye wuxuu yahay cid kasta oo abaabul ku jirta iyo nin kasta oo qora haysta oo meel taagan oo dagaal u abaabulan in la qabto qoragana laga qaado lana xiro ciddii dagaalantana lala dagaalamo la dilo maydkooda dhagaxa la saaro amarkaasaan bixiyey nimankii siyaasiyiinta oo hawshaa la iigu sheegay waxaana guryahooda kama bixi karaan amar baan ku bixiyey raggaan amarka saaray waxaa ka mid a iftiin baa ka mid a waxaa ka mid a qaldaan baa cabdullaahi qaldaan baa ka mid a operationkaas wixii ka yimaada mas-uuliyaddeeda anigaa qaadaya annagoo fadhinabuu askarta amar siinaya la hadlaaya wuxuu lahaa ciddii idin hor istaagta wax idinka gala male dadkaasu inta islaan lahayn idinku laaya aniga waxaan idinka rabaa meeshaas oo aan qoray iyo xabad ka dhacaysa deegaankaa hadday ula isula tegaayeen ha isula tageen laakiin waxa weeye xabad qoraya oo meeshaas ooli karta oo dambe oo lagu dagaalami karo oo dadkaas haysan karaa ma jiro ninkaasu hawshaas buu maaragtay amarkeeda bixinayay isla markiina waxaaba maqlayn maaragtay la helay agga hadda meesha aad sheegaysaan in wax ka dhaceen arrintaas waa sidaas anugu markaa hadda messagekaan idii soo gudbinayo raggeena kismaayo jooga odayaasha waxa weeye odayaalow hawshaas baa socota maxay ahayd inagu nimankaa kooyalada wata iyo bilkaa'imada iyo baaskuyaasha wato aad ogtihiin hadda haddaynu hor istaagno inagaynu iskalno oo dagaal iskalno arrintaasu de wax macnaa ay hadda ina ka faa'iidaynaa ma jirto kaadi badana waa loo gobol badiyaa nimankaan iyagaa hubaya hadday leeyihin annaga hubka ka dhigayno soo qabanayna dadkii dadka laayana keenayna maxkamadda soo taagayna anugu waxaan qabaa arrintaa inaan ka sugno inaynu meelaha maaragtay waddooyinka ah iyo hubkeenna wixii aynu haysano dhallinyaradeena loo sheego odayaasha abaabul aad samaysaan ee ah maaragtay inaan operationkaas uu ninkaasu isagu hadda iclaamiyey oo wado inaan la hor istaagin sidaan uga maaraysan karro aan uga maaraysano anigu talada aan soo jeedinaya intaas weeye derina subaxdii baanu kulansannahay qolooyinkii maaragtay ganacsatada iyo reer nairobina insha allahu tacaala berri baanu ka howlgeli doonaa wixii taaqulayn